بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤاله إني تحناها سلسلة دي سؤالها فيسبوك وحلقة إني أفرتني يتضبط وأنكسو قادم دونه dhowr su-aaladoo ka mid ah su-aalihii dadka nooga yimid su-aasha koobaad ee xalqadeennu waa xaalad qoys nin baa wuxuu leeyahay xaaskayga ayaan furay ayadoo uur leh waxaan ku furay hal dalaaq usbuuc kadib baan niyeystay inaan ku laabto waxay i weydiisay inaan ku laabtay waxaana ku idhi haa waan kugu laabtay laakiin kuma dhawaaqin kelimadda rajactuki xaaskayga ma soo ceshmaysaa mise shuruuddii waxbaa iga dhiman su-aasha jawaabteedu haa way soo noqonaysaa oo xaaskiisii bay dib u noqotay soo ceshigana inuu af carabi yahay qasab ma aha luqad kasta oo macnaha tilmaamaysa reerkiisi inuu ku noqday ama reerkii ka furmay la soo laabtay oo soo ceshaday ayaa macnihii iyo booskii gelaysa oo in laga helo erey oo ku soo ceshanayo haddiuusan erey ku dhawaaqin oo fal yimadoos gurigii isaga soo laabto oo reer ahaan loo wada dhaqmana oo masale khilaaf culimmada ku jira oo culimada qaar ay qabaan ficilku inuu booska ereyga iyo qowlka gelayo marka saa'ilkan si gaarana soo weydiiyey intaasi waa ku filan tahay xaaskiisii inuu soo ceshado intaasaa ugu filan guud ahaan wax shuruudoo ka dhiman ma jiro keliya waxaan laga rabaa arrintaasi hadhow saynan inkiraad u gelin inuu markhaati u yeelo inay saasi dhacday dalqadaas reerkiisina uu soo ceshaday intaasaa laga doonayaa si wixii hadhow wax tixraaciyo caddayn kalsoonideeda wadata leh loo helo haddii berrin wax u yimaadana markhaatigaasi insha allahu tacaala uu uga markhaati furo wixii uu ogaayo wixii uu maqlayo wixii loo sheegay saa'ilka labaad ee xalqadan 47 wuxuu leeyahay waxaan ahay waa qof tagsiila ah wuxuu leeyahay mararka qaarkood waxaan qaadaa dad ay wata dadka tagsiila ee badankoodna ma jecla inay qaadaan dadka noocan oo kale ah aniguse waan qaadaa dembi ma iga soo gaarhaya kow gaarigase ma iga nijaasoobaya waa laba mas'alo oo ayga la xiriira masalada qaadistu dembi ma aha aygu waan la iibin karin ama hilibkiisii yaan la cuni karin laakiin waa wax la intifaacsan karo oo la dhaqan karo haddii loo dhaqanayo sidii sharci ogolaa nabigana alai slat slaam waa diiday ayga in la dhaqdoo la kaydsado ilaa ay manfaco iyo maslaxad leh inuu yahay maahane wuxuuna tusaaleyo ka bixiyey faa'iidooyinkii nacfigii loo dhaqan jiray ayga wakhtigii hore mid beer ilaalinaya lagu ugaarsanayo kalba saydin ay lagu ugaarsanayo mid xoola lu raacaya mid beer ilaalinaya kuyaalahaasuu ka soo reebay nabigu sala allahu alayh wasalam hadday soo baxdo de beer iyo xoolaa la ilaalinayay in guryihii u ilaalinayo meel tuugalihiiyo waardiya looga baxdo iyo haddii ay soo baxdo manaafic kale oo uu leeyahay oo la intifaacsan karo oo manfaco iyo nafci bannaana intaba waa loo haysan karaa laakiin wuxuu ka mid yahay waxyaabaha yaryarka ah iyagoo nacfigoodu bannaan yahay beecooda uusan bannaanayn war hadduu nacfigiisu bannaan yahay waa la haysan karaa qaadistiisuna dembi ma aha taasi waa su-aasha koobaad qaybta labaad ee su-aashu gaariga ma iga nijaasoobaya waxay ku xiran tahay dee aygu ma qoyanaa mise wuu qalqalayl buu ahaa haddii uu qalalaa jirkiisoo dhan wax qoyaan oo jirka ayga ka mid ahna aanu gaariga gaarin
waxba ma nijaasaynayo. waana midda fuqahadeenu ay yidhaahdaan laa jaafaani, laba ingegan wax isma nijaaseeyaan. ayga keliyana gaar kuma ahe nijaaso kasta oo ku taabata ama aad taabato iyadoo qalalana waxba kaa soo raacaynin waxba kuma nijaasaynayso. haddii laakiin uu qoyanaa, qoyaankiisaasi waa laba qaybood. qayb khilaaf kama jiro inuu nijaasaynayo, inaad dhaqda lagaga baahan yahay. qaybtaasi waa haddii caliyada iyo dhareerka afkiisa ah uu ka meel ka mida gaaro oo uu taabto gaadhigii. qaybtaas in la dhaqayo oo 7 jeer oo midi ciid tahay ama ta 8aad ciid laga dhigayo, labada midkii la sameeyaba in lagu dhaqo waa waajib, waana nijaasaynayaayo dee aygu waxa laga dhaqayaay tiradu ha ka badnaata kuwa kale, laakiin asalku waa tahaaro iyo najaaso weeyo. tahuuru inaa axadikum idaa walaqa fiihi lkalb weye. walaqana afkiisa caliyadiisa iyo dhareerkiisa la yidhahdaa. haddii uusan afkiisa dhareer ka gaarin laakiin jirkiisa kala qoyana, ama meel qoyan buu kusoo istaagay, ama isagaaba roob iyo biyo qoyanaya kusoo da-een, ama gaadhigii uu soo fuulay ee lasoo saaray laftiisaa meeshu qoyanayd uu yimid, haddii qoyaan uu ku taabtaaye masala khilaafiya oo afka iyo carabka iyo maahane markii kaadi iyo xaariya laga reebo, dhareerka afka maahane qoyaanka jirka kale eygu ma nijaasa mise maaha, khilaafkii culummada ee badnaa ayaa gelaya. waxaana fiican inaad iska dhaqdo si aad khilaafka iyo waswaaskiisaba uga baxdo adiga iyo dadka aad qaadi doontaba. wabilahi towfiiq. saylka saddexaad ee xalqadeennan wuxuu leeyahay oo xaalad qoys oo kale, wuxuu yihi xaaskaygaan furay, wiilna way i dhashay, ciddadii way ka dhammaatay, marmar baan ku soo booqdaa guriga, ma ii bannaan tahay sodohdii gabadhan aan kala tagnay hooyadeed inaan gacanta ku salaamo mise waa iga ajnabi? su-aasha jawaabteedu way ku bannaan tahay wey. qofku haween hadduu guursado, gabadha uu guursaday hooyadeed waxay abad xaraam uga noqotaa mar alaale markii meher ku dhaco. waxay soo gelaysaa wa ummahaatu nisaa'ikum, haweenka aad qabtaan hooyooyinkood baa xaraam idinka ah. suuratu nisaa aayadda dadka lagu sheegayna waa dadka taxriimkooda iyo xaaraamka iyo abidba xaaraanka ah. xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa camaatukum wa khaalaatukum wa banaatu alakhi wa banaatu اlukhti wa ummahaatukum alatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaacati wa ummahaatu nisaa'ikum. mana loo shartiin ummahaatu nisaa'ikum markii la yidhi inaad gogol iyo reernimo isku aragteen gabadha iyo in kale shardi lagama dhigin. keliya gabadha rabiibada ah baa la yidhi warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihin. taasina waxay u tilmaamaysaa haddaad hooyada ma guursato, haddaad qof dumara guursato, gabadheedu hooyada gogol isugu timaadeen bay gabadhu xaaraan ku noqotaa. lakiin haddaad gabadha guursato, hooyadu meherkaa dhacay bay ummahaata nisaa'ikum ku noqotay. saas darteed maxram abad ay kuu tahay, ama gabadhii wada jooga ama gabadhii kala taga. masaladaana culamo badan waxay soo guuriyaan ijmaac in la isku raacsan yahay oo wax khilaafo ka taagan ba jirin, sida xaafid abu cumar ibn cabdilbar iyo ragga lamida raxmat ullahi calayhim jamiican. saylka afraad baa wuxuu leeyahay qof xoolo zaka xoola bixinaya, xoolo nool zakadood buu u muuqdaa. qof faqiirahoo waayeela ayaan zaka siiyey, kadib wuxuu waayey meel uu geysto, wuxuuna iga codsaday inaan xoolahayga ugu daro. ma ku saka gudayaa sanadka soo socda? hadday xoolo nool yihiin haa, neefkan xoolaha ku jira ee daaqsintii iyo xeradii iyo qofkii raacayey iyo habeen iyo maalinba ka mid ah uu ku saka galayaa. laakiin waxaa kuu bannaanood heersaka lagu ogol yahay intaa sakadu ay noqoto adu inaad bixisoodan isaga waxba weydiinin, isagana waxba weydiinin, sida qofka deyn looga bixin karo bini aadam ku leeyahay
baa daynullaahina looga gudi karaa isagoo nool ama dhintay haddii gaar ahaan waxyaabaha wakiilnimadu iyo qof kale booska inuu kuu buuxiya ay geli karto. xoolaha isku jira sakadooda markaad bixiso wixii isaga sakada aad siisay ee ku dhex jirtee neef iyo laba waxay dooni ha noqotee basantajkii kaga soo aadi lahaa baad isaga dayn ugu yeelan. dayntana waad isaga cafiyi kartaa haddaba qof intaa iyo tabartiisi iyo da-diisi iyo baahidiisu tahay neefkaa uu ku sakanaya ka saka bixi. waxaan dhihi lahaa intaana waxba dayn ha u qabsane isaga cafi. waa hadday sakadu tahay waxa laga sakanaya xoolo nool yihiin. haddayna xoolo nool ahayn oo lacag tahay masala khilaafiyo jamhuurtu waxay u badan yihiin inaanay lacagi isku sakaynin, ama in yar ha ahaato ama in badan ha ahaato ama shirkad ha ahaato ama yaanay ahaanin. laakiin calaa qowli asxaabina shawaafic iyadoo looga qiyaasanayo xoolihii noolaa way isku sakaynayaanoo sidii xukunkii horun bay mari. wabillahi towfiiq. saylka shanaad wuxuu ina leeyahay shirkad ka shaqaysa ganacsiyo badan waxaan ka shaqeeyaa buu leeyahay shirkad ku jirta ganacsiyo badan ma bannaan tahay inaan samaysto ganacsi lamid ah midka ay ku jirto si madax bannaan anigoo weli shirkadda u shaqaynaya? su-aasha jawaabteedu haa way bannaan tahay, laakiin waa inaadan shirkaddan aad ka shaqaynaysaay aadan wax khiyaano ah iyo si xun uga faa'iidaysi aadan ku samaynin. mar haddaad shaqaalo tahay shaqadu waa ammaano. xoolaha iyo shaqadaa laguu dhiibay ama shaqada iyo awoodda la gelinaya ha noqoto ama xogteedii iyo macaamiisheedii iyo xoolaheeda ha noqdaan, waa kugu ammaano. hadba qadarka mas-uuliyadda lagaaga dhiibay ee lagaaga diray. qofku markuu meel ka shaqeeyo dabcan dee booska uu jooga ee shaqada ka joogay way kala duwanaanaysaa. waxaa dhici karta hadduu qofku joogo qofka dalabka jooga uu yahay, shaydaanku intuu u sheego o yidhahda adna meel gaara furo magacii shirkaddan dalabaad inuu ku samaystay aan loogeyn way dhici karta. ilaan magacii shirkaddan uu ku qaadanayaa rasiidkeediina waa isticmaalayaa, isagana shirkaddan ay ku yaqaanaan. laakiin dukaamada kale uu furtay ee sabalaayaga ay geynayaan ay alaabta geynayaan isaga anaa gaar u yeelanaya, taa lama ogola. waayo booskii iyo mas-uuliyaddii aad joogtay baad si qaldan uga faa'iidaysanaysaa. magacoodii baad isticmaalaysaa, macaamiishoodii baad isticmaalaysaa, rasiidkii iyo kaarkii ay lahaayeen baad isticmaalaysaa. adiguna afka aad ku hadlayso ee lagugu yaqaano shirkaddana ka socota weeye. dadkuna waxay u yaqaanaan shirkaddii inaad u dalabtay, adiguna meel kale aad u dalabtay. taasi waa awooddaadii iyo xilkaad shirkadda u haysay oo si xun u adeegsatay. waa sida hadda waxyaabaha Kenya laga yidhaahdo kickbacka laga yidhahdo oo kaleeta waay. ninka booska uu joogo qandaraasyo uu bixinayaa, qandaraaskii aan ku siiye aniga maxaad ii ogoshahay buu leeyahay. dhagaxaan ku siinaya maxaad ii ogoshahay, ciiddaan ku siinaya aniga maxaad ii ogoshahay, birtaan ku siinaya maxaad ii ogoshahay. dhismo markuu ku jira waay. kontraktiga dhan baan ku siinayaa, anaana mas-uulka ah, aniga wax gaara ii garo. mararka qaarkood waxaa dhacaysa shirkad baad mas-uul uga tahay, dhul baad gadaysaan ama alaab baad gadaysaan. alaabtii dad badan baa soo dalbanaya. qof baad leedahay adaan ku siinayaa, aniga maxaad hoos iigu ogoshahay. waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha nooca qar dadka waxaa laga yaabaa commission iyo dilaal inay dhahaan, laakiin nuxurkeedu laaluush wey. laaluush buu ku qaadanayaa si uu qofkan u siiyo. hadhow waxaa lumaya qofkee baa shaqada u fiican baa lumaya. kay adiga maslaxad gaara kugu jirtaa oo laaluush ka qaadatay noqon. qofaad laaluush ka qaadatana facuna xisho iyo hadhow shaqadu say ahayd uma dabageli kartid. marka waxyaabahaasoo dhan la eego qofku kaashier hadduu yahay, hadduu maamulo yahay, keliya waxaa la rabaa magacii iyo miisaankii iyo manaaficdii shirkadda aad ka shaqaynayso inaadan si gaara u isticmaalin oo ina shirkaddii kula ogeyn raallina kaaga hayn. haddii intaad u sheegto iyagu kaaga raalli noqdaan way ku bannaan tahay, dee waa xaqooda iyagu ka tanaasuleen
ay ku ogolaadeen si heshiis intay kuula galeen shaqaba mushaar kuugu siinayaan fasaxyana kuu siinayaan tan hadda iyagu ku ogolaadaan waa sida laakiin si aynan ogeyn shirkaddu haddaadan uga faa'iidaysanaynin waqtigeedii maalkeedii magaceedii macaamiisheedii aadan uga faa'iidaysanaynin way ku bannaantahay haddii kuwa aad samayn doontana waa khiyaano mas-uuliyaddii iyo shaqadii laguu dhiibtay aada khiyaamayso iyo isdabamaris weeye wabillahi towfiiq saylka lixaad xalqadana wuxuu leeyahay khudbada maalinka jumcaha ah la akhriyo luqadaan carabi ahayn ma ku ansixi kartaa haddaan si kale u dhahno luqada carabigu ma qasaba khudbada jumcada mise luqada carabiga luqad kaleba waa lagu akhrin karaa masalo khilaafu qadiima min cahdi salaf culimada kusoo kala duwanaayeen culimada qaab waxay yidhahdeen mid intaan ogahay culimmadu intooda badani inay carabigu fiican yahay maaha waxa laga hadlayo inuu bannaan yahay afaan carabi ahayn marka laga hadlo nin caadigii qarnigii labaad masale taagneed ba haydee islaamku markii uu fiday luqadda carabiga intii ku hadlaysay wuu ka baxay qowmiyadii iyo buu islaamku gaaray aan af carabi aqoonin oon carab ahayn inkastoo ninkii meesha qabsada ee dadka ka adkaada afkiisa la wada bartoo la isku taxallujiyo islaamkana dadkii hogaaminayay niman carab ay ahaayeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo haddana ummadihii uu gaadhay ummado carabi wada baran kara ma ahayn khudbadan asal ahaan waxaa loogu talagalay usbuuc dadku markay adduunyada ku mashquulsanaadaan in ilaahay taacadiisii iyo akhra xasuusiyo alla kacabsigii iyo la xasuusiyo oo waxyaabahay diintooda jaahil ka yihiinna lagu baro cajamkii markii uu gaadhay dabcan dadkii gaadhsiiyey marka hore cajamku dad carab oo luqadoodu carab tahay bay ahaayeen markii muddo la joogay dadka inay islaameen dad iyagii oo diintii bartay iyo dadkii dhashay oo waaweynaado oo diinta yaqaana markay soo gaareen waxaa yimid jiil iyo ama generation iyo dad waxaa yimid carabigiina yaqaana oo diintii yaqaana dadka in badan oo ka mid oon carabiga aqooninna luqadoodii kula hadli kara markaasay mas'aladu timid wali war dadkan afaan carabi ahayn ma loogu khudbayn karaa waa isla markay yimaadeen masaa'il badan oo xataa salaada la xiriira oo la yidhahdo okay qofkii salaad tukan raba ataxiyaadna carabi aan ku akhriyi karin maxaa la samaynayaa masaa'il badan adkaartii iyo ducadii baa timi salaada dhexdeeda ahayd war dadkii hala ducaystaa la yidhi qofkan carabi aqoonin uu ku ducaysto muxuu samaynayaa salaada gudaheeda mise banaankeeda rukuucdii sujuuddii ataxiyaadkii maxaa la samaynayaa waxaa rabaa inaa idhahda masaa'il saasoo fara badan oy keeneen laba arrimood dadweynihii oon aqoonin iyagoo yimaadeen jiil culimo ah oo afkoodiina kula hadli kara afkii carabigiina ku khudbayn kara min ayaami imaam abi xaniifa raximah allahu tacaala oo taban dhintay dee 150 jir markaa bartamihii qarnigii labaad dhintay dee fuqahadii qarnigii labaad qaybtiisii horena ahaa markaasay khilaafku soo bilowday abu xaniifiya rag lamida waxay yidhahdeen dhib ma laha saa khudbadu erayo sharcigu soo dejiyoo la akhrin ma jiraan hadafkuna dadka in la wacdiyo weeye dadku luqadday garanayaane ilaahayna lagu xasuusin karo taacadiisa aakharana lagu xasuusin karo diintoodana lagu bari karo baa loogu akhrin karaa saas darteed dhib ma laha carabina qasab maaha طبعا wax daliil sharci oo amrayo ilaa wala carabi waa inay noqotona waa la isku raacsan yahay ma jiro laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii taabiciintii carabi bay ku akhrin jiray inta la yaqaan iyo culimada waa qasab afaan carabi ahayn xataa hal qof haduusan garanaynin laguma akhrin karo xataa khatiib garanaya hadii la waayo jumca la tukan maayay duhurkooda iska tukadaan qolo saddexaad waxay yiraahdeen maye haddii carabi garanaya jirin ama dadka meesha fadhiyay carabi aanay wax garanaya ku jirin afkooda hal loogu akhriyo waqti hal la siiyo luqadda carabigana ha bartaan
int saddexdaba saddex qowl oo culammadu leeyihiin bay ahaayeen. fuqahada shaaficiyadu qowlkooda muctamadka yihi waa dad carabiga garanaya hadday jiraanna carabi ha lagu akriyo, waa shardi. haddaynan jirinna luqadan kale ha loogu akriyo, hana la amra inay bartaan. hadday muddo ku filan ku baran waayaan, nax ku bartan la waayaana dee jumco kama ansaxayso. wej waxaa jira fi lmadhab ah oo carabi shardi ma aha, xataa isagoo khatiibka iyo dadka ka dambeeyaba ay wada yaqaanaan, dadka dhegaysanaya garanayaan, luqada kalena waa lagu akhriyi karaa. waa wej fi lmadhab, laakiin ka madhab muctamad ahaan waa wej daciifa. dacfigiisu intee buu gaarsiisan yahay way ku kala duwan yihiin. bimacnaa marka qowlkan la qaadanayo muctamadka ee laleeyahay haddii carabiga dadka yaqaanaan ama qaar yaqaana ku jiro af kale laguma akrin karaaye, ma asaxiixu waa mise al asaxu weye labada cibaaree. asaxiixu haddii lagu yiraahdana ka kale aad buu daciif yahay waay. al asaxu haddii la yidhahdana labadaba ma itaalyaree, laakiin way sii kale xoog badan yihiin waay. intaa marka laga soo tago marka wejkaa waa jiraa fi lmadhab ah oo dha carabiba shardi ma aha. wejkaa marka laga soo tago kan muctamadka ah ee dadka qaar carabi yaqaanaan, markay leeyihiin fuqahada shaafici wa anta kownuhu carabiyatan, sida matniga manhaajkiia ku qoran, waxaa loo jeedaayey waa arkaanta khudbada way. taa shuraaxdooda iyo dhammaan wada fiirisana wax isku khilaafsan ma jiro. qole aan sheegin arkaanta in loo jeediyo iyo inta badanoo ay arkaanuha tiirasha khudbada qasabtay carabi inay tahay, inta kale qasab ma aha. waayo inta kale khudbadaa sixideeda kuma baxidnaba. arkaanu lkhudba marka maxay tahay? muctamadka raajixii waa 5: alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah, nabigoo lagu saliyo. alxamdu lilah lafdiga alxamdu iyo allah ay qasab tahay, iyo nabiga in lagu saliyo sala allahu alيh alih wasalam, iyo dadka ilaahay cabsidiisa in la faro. cabsida ilaahay la faraya erey gaara maaha. ilaahay ateeca la dhihi karaa, ilaahay ka cabsada la dhihi karaa. ilaahay ka cabsada in la yihahdo, ilaahay ateeca in la yihahdo waa 3. saddexdaasi waa khudbada hore. aayad in la akhriyo oo rukni inay tahay khilaaf badani ka jiro, iyo muslimiinta in loo duceeyo. muslimiinta in loo duceeyana waa khudbada dambe. aayad qur-aana in la akhriyana midkii laga dhigaba dhib ma laha, ama khudbada hore ku dar ama tadamba ku dar. marka haddaad tiraha alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayh alih wasalam, yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida uusiikum wanafsii bitaqwa allahi jala wacalaa. inta haddaad tirahdo khudbadii way asaxday. inta kale afkaa dooni ku akhri ama haba akhriyin. keliya marka u dambaysana allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaati inaka qariibun mujiibu dacawaati. khudbadii waa dhanta. haddaad taa ducadana tadamba ku darto ilaahay ka cabsada iyo aayad qur-aana, waxay yidhaahdeen ama aayad qeyb kamidahoo macno laga fahmayo iyo aayad macno fahansiinaysa oon ahayn sida uma nadara. uma nadara waxay yidhahdeen macno keligeed ma laha, kooxa ka hore ay ku xiranta. aayad ama aayad nuska qeyb kamidahoo macno dhammaystiran leh. intaa weeye inta laga hadlayo af carabi in lagu sheego waa shardi. khudbooyinka hadda qeybna carabiga yihiin qeybna soomaaliga laga dhigo, markii alxamdu lilaahi waa lagu wada furfurtaa, saliga nabiga waa lagu wada furfurtaa, uusiikum wanafsii bitaqwa llahi haddii la yidhaahdo, aayad qur-aanana lagu daro, ta labaad aakhirkeedana la duceeyo. calaa almuctamad, qowlka muctamadka ee shaaficiyadu khudbada waa saxiix, waxba kama dhimana. haddii la isugu daro arkaantii carabiga ahaydna in la ilaaliyo, dadkii waxay fahmayeen iyo risaaladiina la gaadhsiiyaayey waxba ma jabna. cidda waa shardi ka dhigtana dee wax aayad nas sharci oo qasab ka dhigaya heli maayaan. keliya nabiga saasuu ku khudbeyn jiray. nabigana calaih salaam muqtadaheedii ma jirino, mujtamac iyo dadku la joogeen carabi bay ahayn, afkooduna carabi buu ahaa. wabilahi towfiiq. saailka ugu dambeeya xalqadeennan wuxuu oranayaa
dukaan ayaa ii furan 3 sano. dukaan ayaa ii furan buri 3 sano lasoo dhaafayna ma xisaabin. sanadkii afraad ayaan xisaabiyey 3 sano ee hore sideen uga sakaynayaa. طبعا waxay ku xiran tahay 3 sano ee hore xoolaha zakada dukaanka ku jiray ganacsigu qadar zaka ma dhanaayeen. zakadu markay ganacsiga ka waajibayso 2 arrimood bay ku waajibtaa. xooluhu qadar zaka inay gaaraan sanadna uu ka soo wareego. ganacsi hadday tahay xilligii bilowga sanadka ganacsiga la bilaabay qasab maaha ama shardi maaha inay qadar zaka dhanaayeen. laakiin sanad markuu dhamaado qadar zaka ma dhanaayeen mise ma dhanayn. hadday dhanaayeenna xoolahaagu ay gaadhayeen qadar zakana de zakadii waa lagu leeyahayoo inta aad u badinayso baa 2.5% boqolkiiba 2 ka bixin. haddayna dhanayna laguguma laha. haddii aan la ogeyn ama qofku ogaan la-aan ay u dhaaftay hadda markaa uu xisaabiyey xooluhu hadday zaka gaaraan hadda unbuu ka bixin. wixii kalena dee wuxuu isaguusan ogeyn ka tegay os jaahil ka ahaayey waxba laguma laha. mar walbana diidi mayso inuu sadaqaadna la baxo istikfaartan iyo ilaahay dambi dhaaf weydiistana badiyo lacalla haddii wax ka khaldamay. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xalqadeenna 47 ee taxanaha silsiladeeni su-aalaha facebooka ilaa xalqada 48 aan soo imanayno. sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.